sana saxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni galabnimo maanta waa jimco wanaagsan meel kastoo aad naga daawanaysaan. haddaba barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa magaalada barakeysan ee Qudus. maxaa ka dhacay maanta Qudus? maalmahan xaaladdu way kusoo laalaabatay, yuhuuddii nagtaa laga saarayaa. maalin hore waa taa ogeydeen in rasaas lala beegsaday meel basaska laga raaco, qaar badan laga dilay, kuwo kale laga dhaawacay. maantana waxay ahayd maalin kale oo toorrey loo isticmaalay oo nagta laga saaray yuhuuddii halkaa joogtay. haddaba sida ay wax u dhaceen iyo warbaahintu waxa ay ka qoreen, iyadoo maanta ay ahayd maalin jimco ah, masjidka barakeysan ee al aqsana lagu tukanayay salaadii jimcaha, ayaa xadadkan ama dhibaatadan ay ka dhacday sida la leeyahay magaalada Qudus. haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu ciwaan uga dhigay warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegeen goor dhaweyd 2 qof inay ku dhaawacmeen oo midu yahay xaaladiisu khatar ay tahay. howlgal toorrey loo adeegsaday oo markaa ka dhacay magaalada Qudus, iyadoo howlgalkaana la sheegay in markaa uu ahaa mid uu fuliyay nin Carab ah. haddaba booliiska Israa'iil ayaa waxay yiraahdeen waxaa ku dhaawacmay 2 qof oo la sheegay inay markaasi yuhuud ahaayeen, waxaana la sheegay inay markaa ku sugnaayeen meel hotel ah oo ku taala magaalada Qudus. kanaalka 12 la leeyahay ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa sheegay in markaa toorrey loo isticmaalay weerarkaas uuna fuliyay sida ay yiraahdeen nin Carab ah. booliiska Israa'iil ayaa sheegay in dhacdadan ay la xiriirto dhowr dhacda oo isxigxigay oo ku saabsan xaaladaha isa soo taraya amni darrada sida ay sheegeen Qudus ka jirta. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan oo ku saabsan xaaladaasi in hay-adaha ammaanka ay sheegeen inay xireen dad markaa la tuhmayo inay iyaguna arrinkaa ku lug lahaayeen. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in la xiray 3 qof oo la sheegay in markaa lagu tuhmayo inay howlgalkaa ku lug lahaayeen. joornaalka la yiraahdo Israa'iil Huyum ayaa xaqiijiyay 3 qof in markaa xabsiga loo taxaabay oo la xiray iyo qofkii weerarka sameeyay sida ay yiraahdeen. haddaba ciidamada waxay sheegayaan Israa'iiliyiinta in ay wadaan baaritaano kale oo ku saabsan arrinta. hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa waxay leedahay ninka howlgalka fuliyay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo markaa ay ku tilmaameen inuu Carab ahaa. hay-adda wararka Falastiiniyiinta ayaa waxay leeyihiin ninkaasi wuxuu ka soo jeeday deegaanka la yiraahdo Shufacaad oo ku yaala bariga magaalada Qudus. warbaahinta Israa'iil waxay leeyihiin ninkaasi inuu ahaa Carabta Israa'iil ku dhex nool ee degan. haddaba warbixinadu way sii socdeen, waxaa la leeyahay in markaa ciidamada intaanay soo gaarin weerarka ay ka falceliyeen kuwa loogu sheegay inay ahaayeen ilaalada hoteelka uu weerarku ka dhacay. booliiska magaalada Qudus ee Israa'iiliyiinta ayaa waxay yiraahdeen dhacdadan toorreyda loo isticmaalay ee ka dhacday hoteelka in markaasi ay la xiriirto nacayb sinji sida ay leeyihiin. booliis fara badan ayaa la sheegay inay xoojiyeen ammaanka goobta shilka uu ka dhacay ee magaalada Qudus. ilaa hadda tafaasiil fara badan oo arrinkaa ku saabsan oo kasoo baxay ma jiro sida la leeyahay. marka waa arkaysaa waxaa leeyahay meesha nimankii nagtaa laga saaray mar walba, laakiin warbaahintu waxay yidhahdaan Israa'iiliyiintu waxbay qariyaan, sida ay wax u dhaceen waxuma sheegaan. haddaba markii weerarkaa dhacay oo meel walba la isqabsaday oo qayladu yeertay la yiri waxa kan kusoo laalaabanaya Qudus maxay yihiin, ayaa Xamaas waxay soo saareen war ku saabsan siday u arkaan dhacdadaas. ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta ayaa isaguna wuxuu hambaliyeeyay weerarkii ka dhacay magaalada Qudus. haddaba Xamaas waxay leedahay weerarkan waxa uu jawaab u yahay dambiyada iyo tacadiyada argagixisada Israa'iil ay ku hayaan dhulka Falastiiniyiinta ah. haddaba howlgalkan toorreyda ayay Xamaas waxay sheegtay ka dhacay magaalada Qudus inay mar kale u tahay dharbaaxyo cusub oo ku dhacday waxa ay ku tilmaameen nidaamka gumaysiga ah ee dadka dhibaateynaya. haddaba waxay sheegeen jawaabtani inay tahay mid dabiici ah
oo mar walba ka dhalata carada dadka marka la dhibaateeyo. haddaba waxay yidhaahdeen waxaan ugu baaqaynaa jamaahiirta shacbigeena inay sii wadaan weerarada noocan ah oo ay mar kasta la beegsanayaan ciidamada Israa'iil. marka iyaguna way hambalyeynayaan, kuwaasna way qaylinayaan, waa la iska daba wareegayaa. Xamaas waxay leedahay intaa kasii wada, sida u wadaan meel fiican ka wadaan ilaahi. shacabkeeniyow ka jawaaba dhibaatada iyo waxa la idin geysanayo, waxaad heli karto nafta kaga saar yahuudiga qabataan ilaahi. marka sheekadaas halkaas ay maraysaa. dhanka magaalada Gaza warar cusub ayaa soo kordhay. haddaba telefishinka Al Jazeera waxay leeyihiin joornaalka la yiraahdo Yadcood Axranoot ee ka soo baxay Israa'iil ayaa wuxuu qoray goor dhaweyd ciidanka Israa'iiliyiinta ee ku sugan Gaza in ay markaasi ka soo darayso xaaladooda caafimaad oo dhanka maqaarka ah ama jaldiga ah sida la leeyahay. ciidamada waxaa la sheegay inay ka cabanayaan cudurro dhanka maqaarka ah kaasoo la sheegay in markaa uu ku sii faafayo oo ay isqabadsiinayaan ciidanka. dhanka kale waxaa la sheegayaa wararkii ugu dambeeyay Gaza ka mid ah. joornaalka Yadcood Axranoot wuxuu leeyahay abaanduulaha ciidanka ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay fashil ku yimaada howlgalka cusub ee ay doonayeen inay ku qabsadaan Gaza. haddaba abaanduulaha ciidanka ninka la yiraahdo Eyal Zamir ayaa wuxuu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay howlgalkii ay maalmahan wadeen in uu u muuqdo mid fashil ku dhamaanaya oo aan xaqiiqdiisa iyo hadafkiisa aan la gaari karin sida uu sheegay. waxaana uu dhanka kale sheegay inay tahay in la xaqiijiyo mustawaha dhanka siyaasadda ah. Zamir waxa uu sheegay in Netanyahu Smotrich ay qaraaraadka ay qaadanayaan ay tahay mid markaa culus marka loo eego ciidanka iyo sida ay dagaalka u galayaan. marka laba arrin oo muhiim ah ay leedahay Jazeera way ka cusub tahay. barnaamijkii horena waa ku soo qaatay askarta jirkooda go-go-ayo maqaarka waliba waa Jazeera waxay leedahay wuu sii xoogaysanayaa. midda labaad ee aanu hadda ogaanay waxay tahay abaanduulihii wuxuu qiranayaa fashil inay tahay. ushii casa Muusa waa loo bareeri waayey waa macnaha sida muuqata howlgalkii ay la baxeen muqaawamada ushii nabi Muuse calayhi salaam ayaa wuxuu sheegay ninkanu inay markaa hadda Israa'iiliyiinta ciidankoodii waa ninkii ugu sarreeyay. wuxuu leeyahay ahdaaftii fashilay ku sii socotaa. dhanka marka waxaan rabnaa Smotrich iyo Netanyahu iyo siyaasadda iyo howlahan iyo inay galaan macnaha meelaha isku boojeeyo leeyahay dagaal, laakiin nimankan waxba looguma cunayo leeyahay. waa la duqay, waa soo taagan yihiin, cudurraaba hadda askartii ku dhacaa la leeyahay. sheeko waalan ayaa iyaduna halkaa ka socota. bal adinkuna fakarkiina iyo aragtidiina waa muhiim noo soo qora. qadar xayeysiisa kadib waxaynu u gudbi doonaa qeybaha dambe. waxaa warar cusub ka soo kordheen dadkii nabadda u ololeynayay ee doomaha tirada badan watay ee doonayay inay markaa tagaan magaalada Gaza. xaalkoodu halkuu ku dambeeyay warar cusub ayaan idinkaga haya. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markazu Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah. maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, higaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaani dugsiga markazu Daaru Taqwa. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo weliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo. kala xidhiir telefoonada kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena galabnimo. waa galabnimo jimcaha. qaybtan waxaynu kusoo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay. waxaa ka mid ah ee soo kordhay
doonidii ama doonyihii iyagu is aruursaday ee kusii jeeday Gaza halkee hadda joogaan. wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray ayaan idinla wadaagayaa. telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay doomihii is aruursaday ee Asumuud ayaa hadda waxay gaareen dekad la yiraahdo Banzart oo markaa wadanka Tunisia ku taala, iyagoo u diyaar garoobaya safarkooda inay sii wataan. dooniyahan ayaa waxaa la sheegayaa inay yihiin doomo ay saaran yihiin dad kala duwan. maanta oo Jimcaha doomihii isla socday waxay ku nasanayaan oo ay gaareen dekad kale oo wadanka Tunisia ku taala oo la yiraahdo Banzart dhanka waqooyiga Tunisia. waxayna ka yimaadeen dekadii Tunisia ee la yiraahdo Saidi Bou Said, taasoo ahayd dekadii markii hore drone ay la sheegay inay ku weerartay Israa'iil ka timid. haddaba waxaa la yiri maalmahan hawada ayaa aada u xun oo markaa cimiladu ma wanaagsana dhanka iyo badda Mediterranean-ka sida la leeyahay. laakiin hadda waxaa la sheegayaa cimiladu inay sii wanaagsanaanayso, safarkoodana ay sii wadan doonaan. boqolaal ayaa ka qaybgalaya safarkan, kuwaasoo ka kala socda 50 dowladood, kuwaasoo markaa iyagu isku ballansaday inay tagaan magaalada Gaza. waxaana la sheegayaa in berito subaxnimo Sabtida ah ay markaa koronyadu dhaqaaqi doonto oo markaa aanay jiri doonin meel kale oo ay ku nasanayaan ilaa magaalada Gaza, ama inay isfarasaari doonaan ciidanka Israa'iil oo iyaguna badweynta ku sugaya marka ay u dhowaadaan halkaas. haddaba 36 doonyadood ayaa waxaa la sheegayaa inay wataan dadkan u kala dhashay ilaa 50 dowladood ka kala socda. haddaba waxaa la sheegayaa inay dad kale oo iyaguna nabadda u ololeeya ay kor kala socdaan. dadka safarka hadda ku jira waxay u dhaxeeyaan tiradooda 500 ilaa 700 oo qof ayaa la leeyahay inay markaa dadka hadda ay tiradoodu intaa la eg tahay. 36 doonyoodna way wataan ayaa la leeyahay. markay saaxiib waxba haysta waa lagu sii socdaa. hadda maalmahan hawada xumeeda leeyahay 36 doonyood oo is aruursaday ayaa kusii wajahan. 500 ilaa 700 oo qof saaran. dooni walbana waxoogaagii ay qaadi kartay oo raashin ay waxaas hore usii qaaday. Gaza u soconay leeyihiin, Israa'iilna waatay u hanjabtay. marka waa la arki doonaa. kulay hadda waxaa leeyahay berito ayay dhaqaaqi doonaan. dhaqaaqii ugu dambeeyaa leeyahay wax kala dhicin oo hawadu aysan xumaanin, waxayna markan ku wajahan yihiin Gaza. kulay 2 ilaa 3 maalmood haddii safarku sii socdo iyaga iyo ciidanka Israa'iil way istaaban doonaan ayaa la leeyahay. barnaamijkaygii galabnimo asxaabay intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. inta aan mar kale kulmayno iyo barnaamijyo kale iyo qodobo kale oo xiiso leh, waxaan idin leeyahay ka qayb qaata barnaamijka, like gareynta iyo share gareynta iyo weliba fakarkiina iyo aragtidiina adikoo cabiraya. haddaad cusub tahayna subscribe ka iloobi YouTube-ka, Facebook-na follow garay. inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan, nabadgelyo.